بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ugu faraxsanahay sida aad u soo ajiibteen kulanka saaka aan idinku yeelay mudanayaal waxaan jecelahay inaan idinku bogaadiyo gudashada waajibaadkiina shaqo taasoo qayb weyn ka ah habsami u socodka howlaha qaranka sida la socotaan waxaan ahay mas'uul caan ku ah cimrigii maamul wanaag nacaybka xatooyada xoolaha ummadda muddadii aan qarankan hogaaminayay waxaan xoog saaray sidii loo dhisi lahaa qaran ka badqaba cudurrada ragaadiya horumarka dalka ay ka yihiin maamul xumida iyo musuqmaasuqa sidaa darteed waxaa iga go'aana inaan ummadeyda uga tago dhaxal wanaagsan isla markaana aan nafteyda u reebo taariikh duug ah mudanayaal sida aad daraysantihiin xilliyada kala guurka marka ay dowladdu galaan waxaa dhacday in la xalaashado hantida ummadda boob iyo dhacna uu bilaabmo haddaba si aan uga hortagno arrimaha waxaan idin farayaa inaad laabtaan dadaalkiina isla markaana xilkiina u gudataan si karti iyo hufnaan leh waxaa reeban ku tagrifalka hantida ummadda nooc kastay tahayba waxaan idin farayaa inaad feejignaan joogtaa u yeelataan ilaalinta hantida ummadda cid kastoo ay ku caddaato lunsi xatooyo xoolo qaranka ah waa in tallaabo sharci ah laga qaadaa waxaan idin caddaynayaa inaanan jirin cid sharciga ka sarreysa oo aan xeerku qabanayn waxaan idinka doonayaa warbixin joogto ah iyo howlgallo dhab ah oo lagu ilaaliyo hantida qaranka alla galabkiina ha galo